انتين بعد معاكم كده صحافة أتبني السلام يا سلام كدي كل شيء كذا يده كل بيصوص عطي واحد دور الشدي ديجان كتكتبه هاي إلا حدنا وحكة الحالية لا ياي ودبتدو تاجن تايوين واحد ناس كان عضي إما كودم بنتي بيش الله يراهو عبد القادر beera ku yaalay oo sharci ahaa oo wax waliba ku yaaleen ayaa intay raka soo galeen meel kale hay oo digubeen dib ku sameeyeen fara badan xabada iska rideen ilaa haddana wax laga qabtayna jir dadkaas xagee ka yimaadeen dadkaas waxay ka yimaadeen meel kale ka yimaadeen oo kulleeto واجي دويتو دمكي ماشي أكون نقنقنايي وسيرة ده وقاعد يهاي بيرين بقى وحدش سلطة واحد بودينا ماشي واحد جوجا ميليتري سومال لنا واحد جوجا عيدن بليس أو طليع عيدن بليس بوكو بركسيل اللي هي حتى الغد نروح نقول هنا يصير الكتر سنتين واحد كلو شريع عيدن ما دي مدح تدلي اللي عيدن ما اسمحوا حقوق قبل لا يطلياش ميلها جوجا بليس كم مرة أخوه طور تنكي وطن تدك كوجا جورا عيبة جوجا سيلع nin haray badad ka u qalay oo bagay yiri dadkii la laayay meel kale wax ka qaban maxamed faarax baa la yiraahdaa ninka seelax jooga daraad markii tag la yidhino iska diiday sidee hadaba wax loo qaban karaa mar hadaan ciidankii amnigu aanay wax ka qabanin meeyaan dadkiina isku dhaca beelihii aanay ahayn ciidan beeleedaan iska samaysanayna kol hadayna dawladdu waxba ka qabanin waxa afarta qof dhinaca dhibanayaasha aad ku sheegtay حالي مراد نلسو هالليسي شبكة ورقة هذا البرس واحد شايفين أفر قفوا تبكي اللي جوبي بيرتها الله حري تبكي أفر قفوا لكن كلام الله حري وحجوبي محل لبض قف لبض اللي نعمل سكوترين برساب كإيو تليا برساب كإيو ماير كسيلع سين يدلي إيو نكمل راهو معكم ده برساب كسيل مركي لوي مركي يمدين مدة صدق إيش كورة عبد القادر نبض الصحيح يرهن يلا يري qaybtii dhibta geysatay baa saxiixi weeyday nabadii banaayaashi markaa ku yibaa la soo xiray kadib barasaabkii wuxuu yiri maxaan ku oreeyay kaligood ma qaadayo waa inaan maxaan ku oreeyay dhinacii kalena bar ka qaadaa dhibanaayaashi baa meesha joogay dadka lama joogo dhibanaayaashi ku daray maadaama leedahay waxa sameeynayna ciidan beeleediyo miina ka waclayna dhaxdhaxaadina gashaan sida dadka isku soo dhaweyn leedahay arrintan aad u xalin lahaydeen dawladdu nooma ogolay waa maxaan ku leeyahay dir dhabuun ka keenaysa guurtida dir dhabi iyo guurtida ergeysa joogtuunba inbay gelinkan oo dhanba galbeed ka shaqeysantay annaga la nooma ogola miyaa loo karin arrintan xiisad bay ka wadaa dawladdu maadaama aanay dadkii deegaanka u kulinay iyagu wada hadlaan ma iyada ka wadaba waxba iyada ka dambaysa had ku sababeynaysaa inay ka dambayso waxaan ku sababeynayaa weli maxaan ku oreeyay golaha dhaqanka ee gada buursiga hawlaha faraha ma gelin maxaan ku oreeyay lama oran maxaan ku oreeyay hawsha tan wax ka qabta ee guurtida hargeysa joogtay iyo maxaan ku oreeyay meel ay wax ka qabteen oo baraka yeelata balaaray iyo guurtida iyo maxaan ku oreeyay gandaa dir dhaba joogun baa isku yimaada xariirad oo afar goor isku yimaada waxaan sheegtay odayaalkay daf weeyaan laakiin looma baahno kuwa maxaad ugu baahan lahayd waxa loogu baahan lahayd meesha tani tal meel kale laga xakumaa waxa kana waaba mad kale nagu dul ciyaaraysa wana dhaafsan tahay oo dadkani waa dad maxaan ku leeyahay ilaa muddo dheer gobolkiisa tan in la bilaqaysta la doonayay gacantana lagu dhigay haday tahay geesta luqayaadii haday tahay geesta seylacba marka arrin qaaxa bari lagu qabtay labada reer waagay heshiiyeen ciise ayaa isaaqo tii un baa socoto oo kolba koona la naga soo weeraraya imaka tirakoob yaa la sheegaya meel tirakoob taa la geeyay iyo meel socoto ma garanno cid wada ma garanno sida qubla duriyihii lagu soo tijaabinayay ee khashinka lagu soo ururiyay Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu soo ururiyay lahaa umba maxaan ku oreeyay gobolkana lagu soo ururiyay kolba dhib wixii timaado lagu soo urureysinaya sida darteed meel allaaliya meel wax ka bilaamayaan meel socdaan ilaa hadda ma hayn sultan golihii dhaqanka ee midnimada gada buursi ee muddada dhaweyd golaha samaystay waxa la sheegayaa in golihii aan waxba ka qabanin midnimadii iyo waxyaabaha laakiin si soo dhaweyn sultan hargeysa ka imanayay meelaha ay ku jirtaan ama idinka laftiina leedahay ku dhaliili karin intaad soo dhaweyn wadaan in xaqii kala reerihii laga gubay waxa weeyaan taas oo dhaliisha ee sheegaysa ay salaadiinta gobolka awdal si fiican bay wax u wadaa waan qoladii dhaqanka badbaadisayna waxyaalo badan dadkan soo dhaweynayna siyaasi ma inuu dhaqameed buu ahaa
halkiina waxaan ka idhi kolleyto waanigii idhi maadaama gobolka Somaliland siyaasiyiinteedii ilaa hadda dhibaatooyinka Somaliland dhex taalo waxba ka qaban lahayd koonfurnahay waxba ka qaban lahayd isku mid u tahay waxba isdhaamin waanigii idhi baahayd maxaan ku idhi waa ina qodada dhaqanku waa inay la wareegaan waanigii idhi maadaama maxaan ku idhi siyaasiyiintii Soomaaliyeed meel kasta joogtay hay maxaan ku idhi la dhaceen siyaasadii dhaqanku isku yimaado ka tashada waanigii idhi arrimaha waana in markaan ku celiyaa haday Djibouti tahay haday Soomaaliland tahay haday koonfur tahayba dhaqanku waa inuu dadkani lagu ciyaaray waa shicibkay dhaqanka u haayeen ka qabtaan siyaasiyiintan kubadda ku ciyaaray ee kolba koona kaga imanaya yaa leeyahay Suldaan dadkan imika la xirxiray labada dhinac tiradoodu ma haysaa tiradoodu waa hayaa afar Cabdulqaadir ku xidhan oo labada dhinac ah iyo 6 saylax ku xidhan oo labada dhinac oo 10ka Suldaan waxaad ka hadashay tirakoobka kale tirakoobka dhalinyarta soo xulideeda waxa qayb ka qaatay ilay bulshada in salaadiintii iyo madax dhaqameedkii oo beela ku soo xunay arintaasi meel la soo karin waxa dadka dib ugu celisay beelihii iyo reernimadii iyadoo arintaasi ay maalmihii ugu dambeeyay muddooyinkii ugu dambeeyay mid laga gudbay waxa salaadiinta ma hayna qolo kale oo waxay ahayd maxaan ku idhi dadkani gobolkani waa gobol xidhan wuxuu baahan yahay maxaan ku idhi wax la yiraahdo dhaqdhaqaaq kama jiro deked male meel kale oo shaqo ma jirto marka qaybtii gaadiid leeyda ahayd ee lankuruusaladan iyo waxyaaladan la yimid faraha badan leh iyo qaybtii dhalinyarada ee jaamacadaha ka soo baxay ayaa wada bilaa camala sida darteed qabyaalada xagga sare baabur laga soo saaray un baa meesha lagu dhaadhiciyo waa la kala boobay cid allaale cid qaaday cid kale ma garanayna ilaa hadda xagga laga keenay marka qabyaalada Hargeysa laga keenay ma laga yaabaa in madaxdeena Hargeysa joogtaa keento oo dhici karaysa oo loo soo dhiibi karaa waxaan ku weydiiyay gabilay xalay waxa ka mudaharaadaysay dad ay yiraahdeen uma dhalan gobolka in laga qoro wasaaradda qorsheynta ku qabto agaasimaha guud oo ka soo jeeda deegaanka gabilina way ku eedeynayeen ka waran arrinta wax maxaan ku idhi war kala ma socdo laakiin ina maxaan ku idhi dad kale lana dulkeena ilaahay inuu manarkay dadkaasina ku hayaan ilaa hadda aanu fahmin waxay jeedeen baa leeyahay dad ka soo jeeda beelaha Gadabuursi waan iska hubsan doonaa kuwa haday u jeedaan waa qalad weeyaan dad maxaan ku idhi gobolka u dhashay in la yiraahdo meel kale ka yimaadeen laakiin taa imaka kuma degdegayaan maxaan ku idhi hagaagna uma hubo waxaad kula talinahay madaxda iyo maamulka sare Soomaaliland kulleeyta maamulka iyo maxaan ku idhi madaxda Soomaaliland u sareysa urna loo dhimay ufna lama oran ma leh xaq wax u socdaan bay ilaa hadda ma naankar hay xun bas dhex wadiin dadkina madax isku wada geliseen nidaam hagaagsan oo kala dambeeya oo si fiican wax u kala socdo ilaa hadda ma arkin deegaankan Cabdiqaadir ee ka dhibto ka taagan tahay gabadha iyaga wada maxaa tala u soo jeedinaysaa waxaan u soo jeedinayaa dadka dhaqanku inay hawsha faraha ku qabsadaan odayada dhaqanku ee maxaan ku idhi gobolkan u dhashay ilaa loo yaado inay hawshooda qabsadaan qof kale oo meel kale ka yimday oo maxaan ku idhi la soo ijaartay wax allaale wax xallin karaya ma jirto ninka dirdaba ka yimday iyo ku Djibouti laga keenay waxba ma qaban karo gobolkana faragelin weyn baa ku jirta waxaan leeyahay dadka gobolkan u dhashay meel kasta oo joogto ilaashada gobolkiinan maxaan ku idhi asaasiirta lagu soo ururiyay dhinac walba laga keenay dhinaca gacansaar la yeelan doontaan ma laga yaabaa inay jiri doonto haddaad maaragtay labadii dhinac ee kaleba ka cabanaysaa kolleyta maxaan ku idhi ninka haddii cunaa la qabto meelunbu ku ciirsada imaka ta sii sheegi maayo